Assalamu alaikum, my dear friends, and welcome to this English lesson. Asxaabi maanta waxaynu baranaa simple present tense. Hore waxaan soo baranay present continuous iyo past. Aad ayaad mahadsantihiin. Aad channel ka cusubtay subscribe noo saar, like noo saar, asxaabtaada noo share garee. Simple present tense waxa weeyaan waa ficil ama waa action dhaca maalin walba, sanad walba, isbuuc walba iyo bil walba. Okay, waxaana loo yaqaanaa habitual action ama repeated action. Bata intaa maskaxda ku qabso. Waayahay, qaacida ayuu leeyahay. Qaacidadiisi waxa weeyaan subject ama cidda ficilka samaynaysa. Cidda ficilka samaynaysa waxa weeyaan they, you, we, I, he, she, it. Ayaa waxaa lagu darayaa main verb. Main verbka sidoo kale waxaa la yaqaanaa verb 1. Mise waxaa lagu sii darayaa object. Objectna waa ciddii ficilka lagu dul sameynayay. Tusaale ahaan, they work ayay oranaysaa. Ma oranaysid they works. Okay, he works ba oranaysaa, she works. Haddii ay tahay he iyo she iyo it, ficilka waxaa lagu darayaa s, mar waxaa lagu darayaa es, marna waxaa lagu darayaa ies. Waa he iyo she iyo it. Markan kale ay yihiin they, you, we, I, waxba laguma darayo verbkooda. Okay, tusaale ahaan, cry iyo try. Waxaa isku xiga laba xaraf oo consonant ah ama laba xaraf oo waaweyn. Waxaad ku daraysaa ies intaad wayda masaxday. Cry iyo try oo kale. Tusaale ahaan, she cries. Let's look some examples. Aan isla eegna asxaabay tusaalayaasha qaar, khaasatan kuwa soo noqnoqda ee repeatedka ee maalin kasta dhaca, bil kasta, sanad kasta, week kasta. Okay. I eat pizza every day. Waxaan cunaa pizzaha maalin kasta. I work at the bank. Waxaan ka shaqeeyaa bangiga. I work on a Monday. Waxaan lugeeyaa isniinta. Isniin kasta hadashaan waan lugeeyaa. He plays video games at night. Wuxuu ciyaaraa geemka habeenkii. Markaa sidaan soo sheegnay he iyo she iyo it, mar s baa raacda, mar es, mar ies. Laakiin kuwa kale waxba ma raacaan. Sida plays oo kale, okay? I brush my teeth every morning. Subax kasta iska hayganaaday waan hadida. We go to the gym on weekend. Waxaan tagnaa maalmaha weekendka ama maalmaha fasaxaya. Waxaan tagnaa gymka. I visit the zoo every month. Waxaan booqdaa beerta xayawaanka suuga bil walba hadashaan. Okay. She drinks a coffee every night. Waxay cabtaa kafee habeen kasta. Waxaa loo isticmaalaa asxaabay sidoo kale factiska ama waxyaabaha xaqiiqooyinka. Tusaale ahaan, the moon orbits the earth. Dayuhu wuxuu ku wareegaa dhulka. Okay. The sun rises in the east. Qoraxdana waxay ka soo baxdaa bari. Marka waxyaabaha xaqiiqooyinkana waa loo isticmaalaa simbolka. Haye waxaan isla eegaynaa markay tahay negativeka ama diidmada. Tusaale ahaan, I, we, you, they waxaa raacda markay diidmada tahay do not. Do not waxaa loo soo gaabiyaa done. Okay? He iyo she iyo itna waxaa raacda does not. Does not waxaa loo soo gaabiyaa doesn't. Tusaale ahaan, I work anigu waa shaqeeya. I don't work ma shaqeeyo. Yani waa diidmo. I don't work ma shaqeeyo. He works isaguu shaqeeya. He works waa ninka guri s baa la raacaya. Faabka ama ficilada qaar es qaarna ies. Okay, tan markaas baa raacaysa. He works wuu shaqeeyaa. She works way shaqeysaa. Computer works. Computer buu shaqeeyaa. It baan ka soo qaadanaa computer. Markaan diidmo ka dhigana waxaan odhanayaa he doesn't work. Isagu ma shaqeeyo. She doesn't work. Ayadu ma shaqeyso. Markay diidmada tahay I, you, we, they waxaa raacda do not. Markay tahay he, she, itna waxaa raacda doesn't ama does not. Waxaynu isla eeganaa imakana siday su-aaluhu ugu imaadaan ama questionska. Okay, I, we, you, they waxaa qaadanayaan do, iyo she, itna waxaa qaadanayaan does. Tusaale ahaan, do I work? Anigu miyaan shaqeeyaa? Do we work? Inagu miyaynu shaqeynaa? Do you work? Adigu miyaad shaqeysaa? Do they work? Ayagu miya shaqeeya. Okay, does he work? Isagu miya shaqeeya. Does she work? Ayagu miya shaqeysaa. Does it work? Okay. Do you work at the hospital? Miyaad ka shaqeysaa isbitaalka? Do you work Saturday to Friday? Miyaad shaqeysaa Sabtida ilaa Jimcaha? Does she work at the bank? Miyay ka shaqeysaa bankiga? Markaa sidaas ayay su-aaluhuna ugu imanayaan. Waxaynu isla eegaynaa tusaalayaal labada dhinacba. Haye, where do you work? Hakaad ka shaqeysaa? What do you work? When do you work? Goormaad shaqeysaa? How often do you work? Imse jeer ayaad shaqeysaa? Why do you work? Maxaad u shaqeysaa? Okay,
where does he work iyada xagay ka shaqeysaa. Okay, what does he work isagu muxuu when does he work, when does he work goormay shaqeysaa. How often does he work imse jeer ayuu shaqeeyaa. Why does he work maxay u shaqeysaa ama sabab may u shaqeysaa. intaas ayaan asxaabi kusoo joojinaynaa maanta aad ayaad mahadsantihiin laagta naga ilaawina asxaabtii noo sheerkareeya janaalka kareeya. salaamu calaykum.